kulanti waxaan wanaagsan dhamaantiinba dadka wada nagala socdo waa barnaamijkeenu waa aragga nolosha intii la socotay toddobaadii ugu dambeeyay waxaanu ku soo qaadaynay waa aragnimadii iyo duruufihii kala duwanaa ee uu soo maray Cabdisalaan Maxamuud Jaamac oo loo yaqaan Cabdisalaan Turki kamid ahaa halgamayaashii waaweynaa ee Soomaaliland Cabdisalaan ku soo dhaw qaybteena saddexaad oo noqon doonta hadii Ilaahay raalli ka noqdo qaybta ugu dambaysa waxaad kamid ahayd ciidamadii sanadkii 1984 bishii November iyadoo markaa ciidamadaasna awoodooda iska yarayd haddana gudaha u soo galay wadanka iyadoo ognahay in laba qaybood oo dagaalkii buuruhu jireen qayb xagga bariga iyo qaybta galbeedka marka adigu iyo bartamaha marka waxaad kamid ahayd qaybtii galbeedka bal looga waran maxaa marka ugu horeysa ay ku timi fikradda ah in waqtigaasi iyadoo xaaladdu ay ciriir ahayd wax badan oo culays soo kale jireen in aad buuraha gudaha u soo gashaan oo aad kamid ahayd adigu markaa raggii gudaha soo galay xilligaasi bismillaahir rahmaanir rahiim dalkaas wuxuu ka yimid uu ka hore go'aankiisu ka horeeyay waxa jiray ciidankii awaare lagu soo ururi tabaka dib lagu celiyay Sayyid Ali inta la baxay bilcaduule lagu soo weeraray lixle ku dhintay ciidankaas inuu gudaha galo ay ahayd isla xilligaasna waa xilligii gudoomiyihii SNM cusbaa markaa ugu muddo dheeraa Ahmed Maxamed Maxamuud silaayo la doortay ayay ahayd xilligaasi barashar kala wuxuu saarnaa SNM waxa la doonayay waxa la raado mideen labada urur ee dowladda Itoobiya wadii marka waxa joogaan dir rabo shir baa lagu jiraa deetana weerarkii lagu soo qaaday ciidankii qolada sahan gudaha soo gashay waxaan soo noqonay lixleeyo iyo saacad lagu soo qaaday shuhadada badan ku dhimatay ayaa awalba ciidamada la sii ururiyay ayaa qarxan in quick loo galo go'aanka loo sii qaatay deetana bariga maxamed kaayin buu ahaa bartamaha waxaa waday Ibrahim Degaweyne galbeedkan waxaa watay Cabdilaahi Askar qolaba masaakiil bala socotay xan galbeedka aniga iyo Axmed Xasan way saacado taqaalin Axmed Xasan aadan Daawud Daahir Allah yarxamo in Cabdiqaraash Axmed Cabdiqaraash Allah yarxamo soo sarkaala inta yaasba waxa kale la socday ma kale oo ah aqoon mutacallimiin ah Saciid Shukri ahli guulay iyo wala badnaa waxa kamid ah in badan mutacallimiin oo ku shahiiday oo waxa kamid ah Axmed Subeer oo kamid ah in badan mutacallimiin badan ku jiray Maxamed Cabdilaahi waxa kamid ah Jinis Axmed Jinis kamid ah waxa kamid ah anu tiran male niman adu dhowr kontona yaa laga dhiman doona meesha maqdambe waxa dhacday tirada guud marka hore imsaahid 100 iyo waxaan ahayn 100 iyo 20 iyo xogaa waxaan waxaan ogaa waliba 100 kaasi in kamid alla matooneeyay dhowr tugalma qorimista oo qorisugaal way Cabdisalaan waxaad nagu warantaa balleen ciidan markuu meel gelayo ama uu dagaal qaadayo waajibaad ayuu meeshaas u galaa iyo ujeedo waajibaadka gaarka la siiyay inaad soo gashaan ama waxaad soo fulisaan ee la ka rabay muxuu ahaa waa asaaska u galeelay dagaalkan SNM wuxuu ka bilaabmay Itoobiya gudaheeda dadku ma ogyahay laba isteetikii dowladdii si aad fashta Itoobiya ku dagaalamay xataa gudaha iyo xataa toon ku dagaalamay waxaan ku jirnaa anagu difaac meesha la yiraahdo qaaxo iyo hartris ee xoreeyay Itoobiya gudaheeda lagu dagaalamay aan xoreeyay khatiyaan baan taagnay dagaalka gudaha geeya ma halka u socotay gudaha way gudaha taga ayuu ahaa dibatana gudaha xagga way taabto oo la dhigay xabad halka socota ay go'aankeedu ahaa dibatana sidaas ayaan ku galnay halka galbeedka aan galeynay waxaan deganay meel la yiraahdo Lafaciise adiguna arkaya uu og yahay waan deganahay waxaan kuwa kale ka doodanahay xabadda waxaan ka bilownaa xadka
xuduudda in xabadda ka bilo markaad hoos socoteen sii socdeenba deetana dhegin baanu dhegin horaan sii soconnay subaxii aan xadka saa uga tallaabna habeenkii halkee ku beegnaad marka halkaad ka talawdan meesha la tula caagan iyo goryacool dhexdooda ayaan barnay ciidan baa degan maxaa ku doorateen jihadaasi asbaabo badan ayaan ku dooranay aan imika tafaasiisheeda aan daangelayn halkaasaan marnay ciidanku markaan subaxii marnay subaxii galabgeed la socdeen tahay duhurnimadii kowdii duhurnimo xabadda markaasay bilaabmaysa tonkii barkii ilaa kowdii dagaalkaanu qabsanaynaa waa buurtii ugu horeysay ayaan dhinaca qabsanaynaa gelikii dambe ilaa fiidnimadii ayaan ku dagaalamayna halkaas deetana waan urursanaynaa lixdii baan ka baxaynaa wax gaadiida maad wadateen ma jirto laba dameeroodoo miinooyin noo saaran yihiin nin walba wuxuu sitaa rasaas nin walba ku sitaa intuu qaadi karay waan xusanahay lixdii aan jabsanay ilaa lixdii subaxnimo socod maantoo xalay socday saaka dagaalamayey maantoo dagaalamayey fiidkii markii dhacday maan ka baxnay gudahaan sii socnay waa berigana buur labaad ayaan da qabsanay buurtaas ota inta sii soconnay dameerihii ayaa naga jabay jararkiiba ka dhaceen dabeetana miinooyinkii qaarkood waxaan soo qaadanay anaa waxbad soo qaaday qaarkood nin wax soo qaaday isdaba gallay buurtii yaanu gallay dakhalkii halkaasu hadan kasii bilaabna dabeetana goole tahay fiidkii waxay ogaatay nimankaa soo socday habeen hore ee xadka soo talaabay shalay la dagaalamayey xalay la soo socday saakama buurta fuleenna dee waa xabad baa bilaabatay marka ma hadlashay waxaad cuntaan xitaa sidaan filaayo ma jirto biyana ma jirto biyana lama hayo cuntaana lama hayo hurdana lama hayo waxaa gu maqaalaa ereyga ah kaadideedan soo cabbay inuu waqtigaasi soo baxayo wuu soo socdaa waxaa dhacaysa dabeeta marka fiidka ahayd badan ayaa la odhanayaa hala baxo dabeetna halkaasaa habeenka saddexaad weeyaanoo kaajabka u dhacaya waa la lex gelayaa meel buur dheer weeyaan kooxna kooxo meel ka degaysaa ciidanba meel biyo aaba qaar lagu dagaalamayaa qaar ku dagaalamayaanoo dhiig wax yaroo dhiig ka noqonayaan waanu jeenaynaa meel buur dheer ayaanu iska daadinaynaa shalodheer la idhahdo ayaanu ka daadinaynaa marka in kooxa adigu gaadhaysaa lixdameeyo toddobaataneeyo ayaanu u go-aynano intii kalena guriba go-ayaan waan soconaynaa habeenkii waxaan soconno waxaan la kulmaynaa meel baan waxaan kula kulmaynaa haan guri yaalla hambiya xusuusteydii waa in badan halkii baan wixii laga cabi karaa waa la soconayaa wax yar noqonaysaa deetana waxaa la gelayaa waa berigii iyo meel jarada meel soo go-ana ayaanu gelaynaa halkaa markaan galno waxaan la helay biyaha aan moodahay wax yar weeyaanoo in yarba waa la ka kabaday marka waxay ogaataa habeen afraadii weeyaan maanshaad baa gelayaa habeen afraadta kala gelayo nimanka halkaa soo socda may seexan wax may cunin wax may cabin waad ciidankii waxaad sheegtay inaad kala jabteen ood lixdan idinku jabteen dib ma isku hesheen mise sidii baad ku kala maqantiin sidii kala maqanahay habeenkii kala jabnay suuxii dambe aan gelayno waa kala maqan yahay warna kama haysaan waxay ku sugan yihiin dagaal meel ku socda ciidanka meel walba afarta koon u fadhiya waa arkaysaa waa artillerigii lugtii ciidankii diyaardii waa gaas koowaad ciidankii loola jiray gaas kala dagaalamaya
gaas koobaad iyo labaad gaaskii labaad uuna hayaa una sariya waay iyadoo macal daraawiishtii la keenay la dagaalkoodu halkaan macaldaraawiishta dagaalamasa waxaa dhacday markaasi jeexjeexaa la galay ciidda kuloo waa halka raggu kaga soo cabay u sheegay waxaa ka dhacday rag ka mida cabay war iska daaya biiraan hala yaabeen waxaa dawla yaabeen habeenkaa dambe maalintaa iyo habeenkaa iyo maalintii ka horeysay iyo habeenkii ka horeysay iyo maalintii ka horeysay iyo habeenkii ka horeysay intaasoo biyo la-aan iyo cunto la-aan socod iyo hurda la-aan hurdana ma jirto cuntana ma jirto biyana ma jirto dadku waa socod iyo dagaal ciidamadu markay dagaal galayeen jabada intaasoo kale bahal timbaal sabaayad iyo waxbaa la sii samay jiray sabaayad waxaa nagu dhacday meedi ka goday mise waa marka hore daan ku talagalay markii waa la sameeyey mar hore la sameeyey waxay ku dhacday markii intaan soo bixin ba sabaayadii way xumaatay sabaayadii la sameeyey oo meel la dhigay oo muddo taariikh hor caariya fuushay kana fuulay dalab waa macnuud bad qaadan war saddex waay ya oo dambo lagama gelin maxaa dhacay markaa intaa ka bacda waxaa dhacday galabtaasi halkaa waan ka baxnay waan soconnay habfiidmadii meel intaydaa kale haddana dib u kala jabi doonaa meel boqolada ku dhow markaan marayno oo subaxay tahay ayaan meel keenayo gaamgelinaa halkii baan horta biyo cabeeyaa oo joogayaa goola tahay kowdii iyo meelaha hayadana unbaa square lana qabanaya waanu dagaalamaynaa halkaa waxaa naga dhimanaya isagana alla yarxamo in cabdiqaraashiyo nin farxaan la dhahdo oo gabxo adeer haa iyo niman dhowra la goobtaas naga dhimanaya laakiin rasaasta idinkama goyn marnaba waxaanu xagga cunto qaadanayn waa rasaas deh ninka ugu yarba labkood buu istaagay xabadoode sax ya waay dabeetana waan qaltabay daalkii kaliga baxeysha marka kooxan waan ka tirsanahay ee cabdillahi askari iyo ina shaqale iyo allahuma xasin ahaa siciid shukri koox baan anugu meel u jabnay waxaa yuusuf weyne iyo guruub baan meel gooni u goonay aad usii goodeen waxaa naga daran lixdankayagaa marka hore geesta u go-ay dal garan mayno dharkii dadka dhulka maraya yaqaanay waa kooxaan karto jabdhaca kale loo jabay ayuu badnaay ay ahaayeen inta lixdankan soo gooday baa lixdameeyo lixdan siyaada ah nin lu garanaya ma ugu jiro markaan si kala goonayna nin lu garanaya kuma jiro nimankaygii kaa joogay dhakaa boqorada agteeda bus agteeda waxaan dib ugu noqonay waqooyi galbeed markaan jabnay hoos baan galnay jawiid waad afka saartay maxaga waxaan galnay cara ciisayo dhex galay dabeetana habeenkii baan ka soo baxaynaa maalintii baan habeenkii gaadhay meelo gelaynaa maalintii fiid baan ka soo baxaynaa dambe guri jeesaan soo kulmaynaa ninkaasaa dariiqaan qaran baan siiyey nin wanaagsan buu ahaa oo jibaab qora waxaana soo kaxeeyey gurubkayga habeenkii soo jaray dhul la soo jarnay ayaanu meel ku dhow arabsiya dusheeda ayuu yidhi wata waan isku qaybin markaanu aniga iyo cabdillahi waxaan daba wixii haraa aan raadinayay inta kale waxaa ka tallaabo inay shuguyaco karto baxa deetaan waxaasoo ka noqono aga baryo dhinaca yaad u leexteen intaa waan garanaa gulwaayo garanaa u leexanay lixi wardool hargeysa markaan soo gallay aan joogno caawo kale hargeysa gudaheeda kusoo noqotay ayaa nimankii marka hubkii ma sidataan oranahay ayaa nimankii wixii daba soconay leeyahay halkaa intaasoo qof basaaka martay lagu dilay meel hargeysa magaalada siyaas baa dhacaysa deetaan maxaa godgal baan tagnay godgal baan iska joognay habeenkaas labaad baan waxaa ka baxnay godgal halkaasoo ka baxno waxaan marnay daboolaqoo sheekh maxamed oo dabataxa maxaan qabsanay waan iska hoyen
saasaa ku nabad gasheen kooxdeenii marka ciidamada kaga sii dibaystay meeshii mise kooxii kale la wada ka horbaxeen kooxii kaleeto iyo filiqsan bay qaar badan baxay qaar waxay ku dhinteen wax ka bartamaha oo rag ku laayeen oo ku dagaalameen qaar alla badaagtooda daawud daahir wax lagu qabtay meesha la dila agteeda oo sarkii kale u dhintay wax gudaha ku dhinteen samaysid qiyaasta ciidankii kala badh baa ku dhimatay halkaas kala badh qiyaasta ku dhawaad intii kale lama baxnay halkaasaan isku helnay kii xadka taqanay dadii baa soo ururiyey annagu marka aan marayno halkaasi ayaa ciidanka dhexe u gelaya waxa daba cajaa'ib ah soo socodkaan soo soconay hore labaad maantaan ka jabi doono aanu ciidanka u dambeeyey suuq waxay waxyaal la yaabka la arkay waxaa kugu fajac badnaa balintii hawsha ku jirtay wax ka mid ah mataada ka buraha halkaan marka marayo anaga ugu dambeeya ayaa waxaan leeyahay buurtu waxay jirtaa halkan adu in aan ku qiyaaso 100 mitir ilaa 100 mitir waxaan taro ka ugu horeeya buurta muu gaarin guteeda ciidankeenu marka rasaasti ay isu baaqayeen ridayaan xasbuna allah wa nicma alwakiil arigaasan xaleelo 3 4 5 6 ma iri dibetana waxay u dhacay qobtaqaana maqano kala wala suuriye waxa arkay ninkii socday maqnaan oday ninkii ciidan ugu dambeeyay aniga laga dambeeyo maya ana buurta fushanba ma soconay mate ma istaago oo buurta fushanay ciidankii kan soo faanaya hoos soo bilaabay waa falisto ilaahay ba qaadir ma arkin waa kamid gaariga aan birjeexa aan ka baxnay waxa la yaab kale tisiyo ka marayno ayuu hashkaday geesh baa geel mid talyaanaya gaarigu kala baaraya uu furaya taangigu soo saaraya batroolka inuu xilay arkaya intuu jaro ka daadi kan ugu batroolka oo dhan jaraya u buuxa si oo xaniiban qasabadii boobahaya gaarigaas muxuu socdaa batroolkii ku jiraay muxuu ku socdaa daroolku حبض هكذا وتدخل كل بعض وتاهي قاعد يمشي وعامس وتكسر يمشي وتاهي كبودي احنا ما ورم بيمشي تصاقب ستمشي انا ما قالين بيمشي وحلا ياب له انت بدها لا سو قلين بدها لفتيده كرقساء ها صعب روحين حتى ما كنت تلابي الا هذا سو قلي بروجيكتور كوين يوصل او هاجيه هذا قدويه افتيكيسو انا باكيا عيد سوقت ماركس wax la yaab lahayn عجيب معجزه wax ka badan waxa kamid ah halka maanta leeyahay kaydada cabay aan shaqo ku jirnay ay wali warabi ilaahay warabi sidii ku warabi wuxuu ku siiyay waxaan siinun baa la geliyay yaraantiina ciyaarano biyo ku ciyaarno meelaha biyada ku biyoolaash qalbadaash dhamseen waatidii oo wabsheed kaasu balagiyo biyo cabsiyen ma ka dhigay inta oo dhow ana kala qaaday an ka shanahay waqooyiga toona xidmad markaa inuu qoyay ma ka koorkii maxadum aamusan ka daban kala cabiya waxa soo dhan waxa walaal ma haka sama waxyaalaha ilaahay meesha ka tusay way عبد السلام wax ka daran ay nimankan shahiiday markaa ay arkeen وهاك عبد السلام way fara badan ayaad kala soo kulantay marxaladaas lagu jiray halkan ka saga bal markii ka gudubnay noloshaada kalaba maxaa aad sulan kartaa haddii kuwaas kugu fajac badnaayeen ama kugu naxdin badnaayeen maxaa kugu farxad badnaayeen intii aad soo noolayd horta naxdinteedii iyo farxadeyda maanta cabdaha oo socona laga qabtay waxaan bay waxay askar ha waxaan ku aansanay inaan ku dhimano ama isaga ama nolol geeriba la baxno tiimku ilaahay naga saaray isaga inaan bixiye farxad iga weyn ima jirin
انت حمد غير كريه وحمد نقي وايو عدو دوغيرس دون انو يرسدو ايو الحين هو قاعد تصفر حد بحد way فرحة الله بعضنا واحد ما انت سمال لنا الواقع تاس تم بست وانا قحنو مرنا با كمان نساحن كمان توسين مركان احتاجمي اننا جاي كونفرنس كنقول مبدئيا دين صعب اي واحد ولا سياد واحد ان حتى واحد اللي قلته عاير السور راعي ما تشوفي بها وتخرجوا ما نتشوفي الحمد لله ما قال فرحة صدحات حقيس أو نبض أو ضوء على كي تعلم خيمت وكو حمد لله واتن كنت شوقا كرسي بدونه حكومة بدونه فرح وحقاطع نمعي حرو تاسو فرح aad baad maaqsantay waa hagaag kaas waxa uu ahaa Cabdisalaam Maxamuud Jaamac oo loo yaqaan Cabdisalaam Turki waxa uu ka mid ahaa halgamayaashii waaweynaa ee wadankan xurintiisii kaalinta aadka u weyn ka soo qaatay waxa ka mid ahaa raggii gadhowdanka ka ahaa operation amaba hawlgalkii lagula baxayay markii la qabtay Cabdulaahi Askar ciidankii uu hogaaminayay Ibraahim Koodbuur ayaa ka mid ahaa sida uu barnaamijyadeeni hore uu naga soo sheekayay waxa kaloo ka mid ahaa raggii halgamayaasha ee dagaalkii buuraha ee 1948 bishii November kaalinta weyn ka soo qaatay adeerkiiseen waayaha iyo duruufaha adag iyo xaaladaha qalafsan ee uu kala soo kulmay sidoo kale gudagalka Hargeysa lagu soo galay 19 ayaa yara goobjoogka oo xubinka maanta halkan stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliland ayuu barnaamijkeena waay arag oo martii inuu ahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaam Turki barnaamijkeena intaas ku soo gabagabeynayna